Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada cashirka koowaad. Welcome to lesson 1. Cashirkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay the alphabets, alifbeetada. The alphabets, alifbeetada waana cashirka koowaad. Lesson 1, cashirka koowaad. Alphabets wax kale maaha, waa alifbeeto. Run ahaantii alifbeetada dadka intooda badan way yaqaanaan, laakiin waxa aan ugu talagalay oo cashirka koowaad aan uga dhigay lacala haddii ay jiraan qof iyo laba aan aqoonin ama qof doonaya in la xasuusiyo oo markaasi raba in hoos laga soo bilaabo. Waxa ugu horeysa alifbeetada A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Xarafkan ugu dambeeya wadamada qaar waxaa laga yaabaa marka ay ku dhawaaqayaan inay yidhaahdaan Z, Z. Waana sax oo markaasi wadamada qaarna waxaa laga yidhaahdaa Z, wadamada qaarna Z. Marka labadaba midkii aad u barato waa sax, waxaa kasii fiican labada noocba inaad u barato. Marka alifbeetada waxyaabaha aan doonayo inaan idinka xasuusiyo waxaa ka mid ah waxa ay u kala baxdaa vowel and consonant. Vowel waxa weeye waa shaqal. Consonant waxa weeye waa shibane. Wax kale ma aha, waxaa la yidhaahdaa vowelka ama shaqalka waa dhawaaq oo marka aad ku dhawaaqayso xoogaa afkaada uu yara furan yahay ama uu yara furmayo. Consonantina ama shibane waxa weeye dhawaaq oo marka aad ku dhawaaqayso ama codkiisa uu kaa soo baxayo uu afka isku yara qabsamayo ama sidii wax isku qabsamayo kale uu ekaanayo. Marka wax kale ma aha, waa un intaas. Marka vowel iyo consonant, shaqal iyo shibane ayay u kala baxaan. Marka shaqalka waxa weeye kuwani aan midabka goonida ah u sameeyey oo jaalaha ah waxa weeye waa A, E, I, O, U. waa shantaas. Vowelka waxa weeye waa 5. Shibanaha waa intan kale ee kasoo hadhay ee midabka cad iyo Y-da oo mararka qaarkood la yidhaahdo Y-da. Marmarna waxa ay noqotaa vowel ama shaqal, mararka qaarna shibane ama consonant. Marka taas weeye waxa aan midabka goonida ah ee keligeed aan ugu sameeyey. Labada dhinacba waa lagu tiriyaa. Marka shibanayaasha waxa weeye waa B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N,
Q R S T V W X Y Z shibanayaasha waxaa la yidhaahdaa waa 21 oo alifbeetada ingiriiska 21 waa shibanayaal 5 waa vowel marka kuwa shaqalka ama vowelka waxyaabaha aad ku xasuusan karto waxaa ka mid ah erayaashan af Soomaaliga ah oo ah Axmed eedadiis isha ooda u geliyay haddii aad tiraahdo Axmed eedadiis isha ooda u geliyay markaasi shantii vowel ayaa kuu soo baxaya oo sida ay isugu xigaan taas ayaa lagu xasuustaa waxyaabaha kale ee alifbeetada waxaa weeye in ay u kala baxdo capital letters iyo small letters capital letters iyo small letters hadda xarfahani aanu fiirinayno waxaa la yidhaahdaa capital letters ama waxaa loo soo gaabiyaa caps waa xarfo waaweyn small letterskana waa kuwanna waxaa la yidhaahdaa small letters small letters waa xarfo yaryar marka waa A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z mid aan doonayo in aan ku xasuusiyo waxa weeye dhawaqa xarafkan B iyo xarafkan P luuqado waxaa jira aan kani ku jirin oo markaasi af Soomaaligana uu ka mid yahay dadka ku hadlana luuqadahaasi aad bay ugu adag tahay xarafkan in ay ku dhawaaqaan aniga xataa aad buu igu adkaan jiray hadda lafteeda marmar ayuu carabkayga diidaa waxaa weeye xarafkan dhawaaqiisa waa P waxay ku kala duwan yihiin waxaa weeye kan waa ba fudud ama B oo bishimaha si tartiib ah ayay isku taabanayaan marka aad ku dhawaaqayso kanna wuu culus yahay oo bishimaha waad isku dhijinaysaa waad isku adkaynaysaa marka waxa weeye waa B iyo P marka sidaas u kala baro dhawaqooda yuusan isaga ka khaldamin sidoo kale xarfaha waaweyn ama capital letters waxaa loo yaqaanaa uppercase capital letters iyo uppercase waa interchangeable waa la isku bedbedeli karaa oo dadka qaarna waxay isticmaalaan uppercase dadka qaarna waxay isticmaalaan capital letters marka labada magacba waa loo yaqaanaa wax kale lagama wado uppercase haddii lagu yiraahdo ama capital letters waxaa laga wadaa xarfahan waaweyn sidoo kale xarfaha yaryar ama small letterskana waxaa loo yaqaanaa iyagana lowercase ama small letters waa interchangeable oo waa la isku bedbedeli karaa oo dadka qaarna waxay yidhahdaan lowercase dadka qaarna waxay yidhahdaan small letters waa xarfihii yaryaraa sidoo kale halkan waxaan ku qoray keliya vowelskii waa shaqladii vowels waa Axmed eedadiis isha ooda u geliyay waxaan filayaa inaad xasuusato waa shantii vowel ama shaqal shibanayaashii iyagana waa kuwan ama waxaa loo yaqaanaa consonants waa shibanayaal ma consonants waa 21 marka cashirkii bilowga ahaa ee alifbeetada ingiriiska halkaas ha inoo joogo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu